Wararka saaxiibayaal oo naga soo gaaraya gudaha magaalada Beled Xawa ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Jubbaland ay ku sugnaa xuduud beenaadka ay la wadaagto Soomaaliya ee Kenya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamada Jubbaland in ay saaka halkaasi iskaga bixeen gebi ahaanba ay faaruujiyeen halkii ay ka deganaayeen magaalada Mandera sababtoo ah 2 maalin ka hor waxaa dowladda Kenya ay u qabatay in 24 saac gudahood ay uga baxaan ciidanka Jubbaland ee ku sugan magaalada Mandera. haddaba saaka wararka aan ka helayno gudaha magaalada Beled Xawa ayaa waxa ay sheegayaan in gebi ahaanba halkaasi ay faaruujiyeen ciidamada ku sugnaayeen ee maamulka Jubbaland. Ciidamada Jubbaland ayaa saaka laga saaray deegaanka BB1 ee duleedka magaalada Mandera kadib cadaadis uga yimid dowladda Kenya. Ciidamadan ayaa isla saaka soo degay deegaanka Malkaariyey iyo beer uu leeyahay nin lagu magacaabo Cabdifataax Xasan Dhoore taasoo ku taalla afafka hore ee xuduud beenaadka Soomaaliya ee la wadaagta Kenya. Waxaa la isku dayay in ciidamada Jubbaland lagu dejiyo xero ku taalla degmada Doolow, hase yeeshee guddoomiyaha degmada Doolow Lafey iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa si cad uga hor yimid iyagoo ka baqaya in ciidamadan ay saameyn ay ku yeeshaan amniga xuduudda iyo dagaalada soo socda. Inkastoo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu dadaal badan uu sameeyey tan iyo shalay ilaa iyo xalay, haddana dadaalkiisa ma u suurtagelin in ciidamada ay ku sugnaadaan xuduud beenaadka ay la wadaagto Soomaaliya ee Kenya. Haddaba maanta waxay ku eg tahay maalinkii saddexaad oo sargaalka Itoobiyaanka ahaa ee Doolow uu soo gaaray maalmo ka hor uuna yidhi ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ha uga baxaan 3 bari gudood ay maanta ku eg tahay. Inkastoo maanta la sugayay in ay xaaladaha isbedeli karaan ayaa waxa ay noqotay in ciidamada Jubbaland ay ku sugnaayeen xuduud beenaadka ay la wadaagto Soomaaliya ee Kenya in ay gebi ahaan ay faaruujiyaan halkii ay ku sugnaayeen. Haddaba wixii ka soo kordhaa iyo sidoo kale warbixinadeena kale ayaa idinkuu soo gudbin doonaa xaaladda guud ee magaalada Beled Xawo iyo waxyaalaha soo cusboonaado ee dhaqdhaqaaqyada ka jira Doolow iyo sidoo kale magaalada Beled Xawo. Tabinteena dambe iyo warbixinadeena dambe ayaa ku daawan doontaan saaxiibayaal.